maanta waa maalin kale asxaabta qaaliga ah dabaqan ayaan rabnaa inaan madax u bixino dabaq madax loo bixina hore ma aragteen dabaqa waa soo galnay gudaha soo galnay gudihiisa ama qolalkiisa waa sidan waxaana rajaynaynaa inaan madax u bixino oo aan ka dhigno qolalkiisa kuwa aad iyo aad u qurux badan suuliyaashiisa xataa ay dhan sidaan waay marka waxaan rabnaa inaan madax u bixino oo kale ilaabaa ka dhigno qolalka oo dhan xataa isku wada mid waa sidaan waay kambaniga deegaan dhowra madax u bixinayo waana sidaad ku barateen jaraanjarooyinka xataa waana sugayaan si kale ilaabaa rabnaa inaan u qurxino soo jiidasho leh qofka waxaan rabnaa markuu soo koraayo inuu ku raaxaysto dhaca asxaabteena qaaliga qolalka aan nadiifinta ku bilowna sidaan aan ka dhignay in keenay asxaabta qaaliga wax badan aad idin waxaan rabaa inaan soo tuso jikada iyo suuliga sida loo nuuri loo qurxiyo waaw jikada sidaan laga dhigay kale ilaab waa loo qurxiyay kambaniga deegaan dhowr meesha ay gasho way gashay waxa kaaga dhigaysaa waali aan ku dhaw guriga qurux oo ku faanaysa barika maal hadda waxa rabaa suuligana tusay laga dhigay waaw suuligana ila fiiri yaa waa gudba malana gadaal soo noqona fiiri waaw suuliga sidaan laga dhigay kale ilaab asxaabta maxaa ka leedinay hal ilaab waxa la ka dhaha kambaniga deegaan dhowr ha loo cunaamado suuliga kala meelan ku taalo qaatay waaw jaraanjar sida laga dhigay waa kana ila fiiri tan he waaw hay ka warramay kambaniga deegaan dhowr sidaan kugu nuurnay guriyahaaga iyo goobaha ganacsi maxaa kala daagaas waad mahadsantiin asxaabtayda maanta dabaqana ahayd mar kalena dabaqo badan aan idin soo sameynaa insha Allah elaan kornoo qaada aad mahadsantiin